halkani waa BBC oo idinkala hadlaysa mawjadaha gaagaaban ku FM-yada magaalooyinka qaarkood iyo internetka ciwaanka ee uu yahay bbcsomali.com. arooryo suuban idilkiin baa khayrtana dhageysatay waa Jimce 17 Abriil saacadda Afrikada Barina haatan waxay tilmaamaysaa 7 aroornimo oo gowa wararkan idaacadan subaxnimo idinku haynana waxa kamid ah halistii koroonuhu halkay maraysa Amnesty International oo Somaliland ka dalbatay in la sii daayo saxafi xidhan Soomaali kamid ah shisheeye hantidooda lagu boobay Koonfur Afrika dhalinyaro Soomaaliya oo waayeelka jaaliyadooda Ingiriiska ku nool isku xil saaray maxay qabtaan magaalada Bristol dhimasho fara badan kama dhicin sida magaalooyinka London iyo Birmingham oo kale dadka waaweyn ee ku noolna waxa ay la duruufiyeen dadka kale ee waaweyn laakiin waxyaabaha sameeyno waxa kamid ah in aanu diyaarinay dad samafalayaal ah oo u soo qaada dawooyinka dad ku karantiimaysan oo ka cabanaya xarumaha lagu hayo Kenya oo ay yiraahdeen xaaladooda liidata wararkii ciyaaraha inta dheer soo saaraha barnaamijku Axmed Badaran oo Axmed Nagaashin oo idin la socodsiinaya subax wanaagsan saaxiibayaal waa tahay qodobadaas oo faahfaahsanahay noo dambeeyaan bal marka hore warkii dunida iyo Isla Axmed Badar Axmed maasanid Axmed Nagaashe dawladda Shiinaha ayaa waxay ku dhawaaqdeen 6.8% wax soo saarka gudaha Shiinaha 4 bilood ugu horeysay sanadkan hoos u dhac ku yimid marka loo barbardhigo sanadkii hore isla waqtigan tirada ayaa muujinaysa saameynta qotada dheer ee fayraska corona uu ku yeeshay dhaqaalaha dalka oo cudurkani ka soo bilaabmay waxa hoos u dhici ugu weynaa oo soo mara dawladda Shiinaha ugu yaraan 30 sano ugu dambeysay balse wariyaha BBC-da ee Shiinaha ayaa soo sheegaya in soo kabashada dhaqaalaha dalkaasi oo ay noqon doonto mid si xawli ah ku socota madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu shaaca ka qaaday qorshihiisa ku aadan sidii loo qaadi lahaa xayiraadaha cudurka corona isla markaana dib loogu furi lahaa dhaqaalaha dalkaasi shir jaraa'id oo ku qabtay aqalka cad ayaa waxa uu ku sheegay in istiraatiijiyadani awood ay u siinayso barasaabyada gobolada inay dib u furaan dhaqaalaha gobolada iyada oo la marayo 3 waji isla markaana lagu saleynayo gobol waliba iyo baahida uu qabo arrintani waxa uu sheegay in qaar ka mid ah gobolada iyagu ay horey u khafifiyeen xayiraadda ayna tahay in dhaqaalahooda dib loo furo ilaa Jimcaha madaxweynaha dalka Brazil Jair Bolsonaro ayaa waxa uu shaqada ka ceyriyay wasiirka caafimaadka Luiz Mandetta kadib markii labada mas'uul oo si toos ah markaas u shaqo-baxay khilaafkooda ku aadan qaabka loo xalinayo fayraska corona Mandetta ayaa waxa uu ololeynayay in dalkaasi xayiraad lagu soo rogo si looga hortago faafidda cudurka corona balse tilaabooyinkaasi waxa ka soo horjeeday madaxweynaha Brazil oo ku baaqay in dadka shaqooyinka ay dib ugu laabtaan madaxweynaha Brazil ayaa waxa uu sheegay in dhaqaalaha Brazil loo baahan yahay in si tartiib uu dib markaasi loogu furo haddii kale dalka dhaqaalihiisa uu burbur ku imanayo ugu dambeyn hay'adda u dooda xuquuqda aadanaha Amnesty International ayaa ka digaysa in malaayiin qof oo Afrika ku nool oo xayiraad lagu soo rogay si loo xakameeyo cudurka corona ay wajahayaan gaajo qaar ka mid ah dadka ayaa ku noolaa waxa ay maalinkaas soo shaqaystaan oo ma awoodaan in raashin jumla ah ay markaasi ka soo gataan bakhaarada waxaa xaaladda sii murjiyay sida hay'addu ay sheegtay shaqaale badan oo shaqooyinka laga diray iyo hoos u dhac dhaqaale oo la filayo in guud ahaan caalamka uu markaasi ku habsado warkii dunidana waa naga intaa Nagaashi aad iyo aad buu mahadsan yahay Axmed Badar oo warkii subaxnimo inoo marinayay ayuu kaasi hayo diyaar garooba dhageystayaal qaybaha kale idaacadda waa tahay aan ku bilaabay dhageystayaal sidii aad warkaba ku maqlayseen halistii coroonaha ayaa weli sii fidaysa oo dunida oo dhan ay weli dhabanada la haystaan madaxweyne Trumpka Mareykanka ayaa faray barasaabada dalkiisa oo siiyay tilmaamo uu ku farayo inay dib u furaan dhaqaalaha goboladaasi bilaha fooda inagu soo haya iyadoo cudurka COVID-19 weli ku sii fidayo dalka Mareykanka oo dhan waxay lahaatan la xaqiijiyay in dad tiradoodu gaadhayso 654,000 oo qof uu ku dhacay cudurkaasi dalka Mareykanka gudihiisa 230,000 iyo dheeraad qofna ay haatan u dhinteen Shiinaha ayaa haatan isna waxa uu soo saaray tiro ka badan intii markii hore la ogaa in ay cudurkaasi ugu dhinteen magaalada Wuhan oo halkii uu markii ugu horeysay ka dilaacay coronavirusku haatanna marka lagu daro ayay yiraahdeen saraakiisha Shiinuhu tirada dadkii aan isbitaalada lala gaadhin ee dhintay ayaa waxa ay wadarta guud ee dhimashada dadka uu cudurkaasi ku dilay magaaladaasi noqonaysa 3,800 iyo dheeraad Singapore ayaa iyadana waxa lagu soo waramayaa in ay tirada dadka uu cudurku ku dhacaya aad kor ugu sii kacaysay madaxweynaha
Brazil Jair Bolsonaro ayaa isaguna xilkii ka qaaday wasiirkii caafimaadka ee dalkiisa oo uu ku qoonsaday inuu shacabka ku tirtirsiiyey waa wasiirka inay guryaha aanay ka soo bixin si loo xakameeyo fiditaanka cudurkan COVID-19. hay-adda xuquuqal insaanka qaranka ee dalka Nigeria oo hay-ad dawliya oo dalkaasi laga leeyahay ayaa waxa ay sheegtay warbixin ay soo saartay ku xustay in booliska dalkaasi ee dhaqan gelinaya bandooda iyo xayiraadda coronaviruska lagula tacaalaya ay dileen dad ka badan inta uu cudurkaasi galaaftay. Soomaaliyana wasiirka caafimaadka Fawziya Abikar Nuur oo ka warbixinaysa xaaladda dalkeeda iyo howlaha shaybaadhka cudurkaas ayaa sheegtay in tirada dadka cudurka laga helay ay korodhay. waxaanay tidhi ilaa inta la howlgeliyey shaybaarka qaranka 7 Abriil waxaa la baaray 186 qofood oo looga shakiyey cudur. waxaa laga helay 80 qofood. 80kaas laga helay 70 ka mid ah waa rag, 10na waa dumar. dadka u badan ee xanuunka laga helay waxa ay da'dooda u dhaxaysaa 20 ilaa 40 jir, kuwaasoo ah 60% bukaanka la xaqiijiyey. bukaanada la xaqiijiyey inay qabaan cudurka 100% in ka badan 90 waxa ay joogaan magaalada Muqdisho. inta testiga lagu sameeyay markii laga soo bilaabo 16 Abriil 2020 waa 193. inta la xaqiijiyey inay positive tahay inta xaaladood oo positive ah waa 80. inta la xaqiijiyey positive-ka ah ee labka ah waa 70. inta la xaqiijiyey ee dhadiga ahna waa 10. wasiirka caafimaadka Soomaaliya Fawziya Abikar Nuur ayay ahayd oo ku warbixinaysay xaaladda cudurkaasi iyo dadka uu ku dhacay Soomaaliya. waa tahay weli wararkii cudurkaas ayaynu ku jirnaa dhegaystayaal. Soomaalida dalalka galbeedka ku nool waxaa ka mid ah dad waayeel ah oo aan aad u aqoonin afafka lagaga hadlo dalalka ay degan yihiin. haatan oo cudurka COVID-19 wacyigelintiisu wadan walba ay ka socotana waxaa jira in aanay fariimaha dowladuhu ay u gudbinayaan shacabka ay suurtagal tahay in aanay dadkan afka aad u baranin aanay si buuxda uga boganin fariimaha ay gudbinayaan dowladuhu ee wacyigelinta. magaalada Bristol ee dalka Ingiriiska waxaa howlo tabarucaada oo wacyigelin iyo taakulo kaleba ka wada urur ka tirsan jaaliyadda Soomaalida ee halka ku nool. Maxamed Cabdi Sayaaqle oo ka tirsan ururkaasi ayaa iga waramay haddaba howlaha ay bulshada u qabtaan. wacyigelinta wadnaa waxay tahay waalidka coronavirus wuxuu keenay dhimasho fara badan. UK-na saasoo kale dhimasho fara badan u keenay. tirada Soomaalida ah ee dhibanaysaana way sii kordhaysaa maalin kasta. waxaanu ku dadaalaynay in fariimaha dawladdu ay soo gudbiso ay dadku fahmaan. waalidka waxaa lagu jiraa xilli kulaala, dadkii waxa ku adag inay guryihii ku jiraan oo waxay doonayaan in dibadda usoo baxaan. qaarkood waxa weeye message-kii ama fariintii dawladda way fahmayaan, laakiinse waxaad moodaa inay ka dhagaadeegayaan. qaarkoodna luqadda Ingiriisiga oo luqadooda labaad oo si fiican fariintii dawladda iyo ee la xidhiidhay COVID-19 ma fahansana. marka waxaan sameynayna wacyigelin la xidhiidha. qofka haddii uu xanuunsado muxuu u baahan yahay inuu sameeyo, inaan dadka ka wacyigelino dadku inay raacaan siyaasadda dawladda. Bristol waxaa ku nool jaaliyad badan oo Soomaali oo aad u fara badan. waxaa lagu sheegaa inay ka mid tahay magaalooyinka ay Soomaalidu ugu badan yihiin Ingiriiska. waxaana jira dabcan dad waaweyn oo waayeela. kuwa iyaga sideed xogta u gaadhsiisaan ay suurtagalna tahay inaanay af Ingiriisiga isku fiicnayn? walaal horta magaalada Bristol waa magaalada 8aad ee dalka UK. dhimasho fara badan kama dhicin sida magaalooyinka London iyo Birmingham oo kale. dadka waaweyn ee ku noolna waxa ay la duruufiin dadka kale ee waaweyn. laakiin waxyaabahan sameeyno waxaa ka mid ah in aanu diyaarinay dad samafalayaal ah oo u soo qaada dawooyinka, dad u sameeyo shopping oo u soo iibiya alaabo albaabka u dhiga. shuruucda nabadgelyada ah in qofku aan isaguna xanuunkiisii gudbinin. marka waxaanu ka caawinaa oo kale wixii qofku xaq u leeyahay ma garanaysaa in loo dalbo u baahan oo iyadana aan ka caawino. waxaanan u caawinaa maadaama iminka aanu isarag badani jirin kolba sidii aan u gaari karno. waxaanu sameynaa fariimo aanu Soomaali ku duubno. waxaanu sameynaa fariimaha iyaga ama halka nagala soo xidhiidhayo oo aanu ka dhigno inay dadku wada heli karaan. iyo sidoo kale in aanu Soomaalida fariintii isu farno oo dadkii wada gaadhsiino fariintii. fariimaha aad duubaysaan halkeed u marisaan dadka sidee u gaadhaan? iminka dalkan Ingiriiska fariimaha dawladdu soo saarto waxa la soo mariyaa TV-ga. dadku Prime Ministerka iyo dawladdu maalin kasta 5 o'clock ilaa 8 o'clock bay soo deysaa warbixin la xidhiidha coronavirus-kii halku marayo. marka tirada dhimashada kordhaysa. shuruucda laga soo saaray
ayaa isbedelaysa. iminka qofkii dibadda lagu arkay ee sabab la-aan soo baxa waa la ganaaxayaa. waxaanu u sheegnaa markaa kolba waxaan u marinaa social mediaha, waxaan u marinaa facebookyada, instagramka, whatsappka iyo dadka soomaalida oona isu farno ayaga laftigooda. laakiin dadka waaweyn oo kale marka la eego ma aha dad teknolojiyadan casriga ay isku fiican yihiin oo ama facebookyo ama social media oo dhanba la jaan qaadaya. siday u gaadhaan arrimahaasi? walaal sida ugu fudud ay fariintaasi u gaari karto dadkaasi waxa weeye in dadkaasi ay warwar badan baa jira. dadka waaweyn iminka waa laga warhayaa dalka ingiriiska oo hay-adda caafimaadka dalkan ayaa ka warhaysa, annagaasoo kale ka warhayna. markaa qofkii soomaaliga ahaa ee qof weyn ahaa ama qofkii weynaa ee qof kale dadka kale ee de ajnabiga ahaa waxa weeye waa la og yahay. haddii qofkaasi xanuunsadana sida keliya waxay noqonaysaa qofka ugu dhow ee markaasi gaari karaa inuu soo gudbiyo warbixintiisa. markuu soo gudbiyena hay-adihii magaranaysaa iyo ururadii anaku aanu ka midka ahayn ee caawinayay inay gaadhaan. jaaliyadiinan soomaalidu waxaa kaloo aad qayb ka tihiin muslimiinta kale degan magaaladaasi. wax xidhiidh oo idinka dhexeeya muslimiinta kale jaaliyadaha kale ahi ururadoodu ma jiraa oo wada shaqaynay? walaal jaaliyadda soomaalidu waa jaaliyadda ugu badan ee degan magaalada Bristol. markaa muslimiin fara badan baa degan. waxyaabaha iminka adag waxaa ka mid ah dhimashada oo kale. marka waxyaabaha muslimiinta aanu ka wada shaqayno muslimiinta kale ee dalka degan waxaa ka mid ah dhimashada iyo in loo diyaar garoobo haddii dhimashadu badato sidee baa loo xalinaya. because qofkii markuu cudurkan qaado coronaviruska ah qofkii jinaasadii lama raaci karo, masaajidadii waa la xidhay, qofkii lama meedhi karo, qof kasta ma meedhi karo. arrimahaas waxay noqotay in dadkii muslimiinta ahaa ay isu yimaadaan dhaqaale ahaan iyo afkaar ahaan intaba ay isu geeyaan una diyaar garoobaan sidii ay magaranaysaa ay dhimashada iyo culayskan uu karen coronavirus ugu diyaar garoobi lahaayeen. maxamed cabdi sayaaqle ayuu ahaa kaasi oo ka tirsan ururkaasi isku xilqaamay in ay dadka waaweyn ee waayeelka ee jaaliyadooda ay wixii ay u qaban karaan ay u qabtaan, wacyigelintana ay dhankooda ka wadaan. khadka teleefonka ee magaalada Bristol ayuu igu waramayey. aragtidiisa waxaa haddaba qodobkaasi ka soo dhiibtay cabdilaahi jaamac oogle oo jooga magaalada Burco. waxaanu leeyahay dhalinyarada soomaalida ee isku xilqaamay dadka waayeelka ah ee ku dhaqan UK in ay xilligan ay jirta buu yidhi xaaladda caafimaad ee uu sababay covid-19 ee dunida aafeeyey. aad baan u soo dhoweynayaa tallaabada ay qaadeen dhallinyaradaasi isu xilqaamay. hore u socda ayaan leeyahay buu yidhi ilaahay ha idin barakeeye. waa tahay qaar ka mid a dhegeystayaasha ayuu ahaa oo aragtidiisa ka dhiibanayey qodobkaasi. halkaad dhegeystayaal weli nagala socotaana waa lantaaf soomaaliga ee b b c. b b c waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. waa tahay bal wararkii soomaalida aynu eegnay. hay-adda xuquuqda aadanaha u dooda Amnesty International ayaa ugu baaqday xukuumadda jamhuuriyadda goonistaaggeeda ku dhawaaqday ee Somalilan inay si degdeg ah oo bilaa shuruuda bay tiri ay ku sii dayso wariyaha xidhan ee Cabdimaalig Muuse Coldoon oo ay hay-addu sheegtay in sifo sharci darro ah loogu xidhay inuu ra'yigiisa cabire awgeed. Cabdilaahi Xasan oo ah baadhe ka tirsan Amnesty International ayaan haddaba khadka teleefonka kula xidhiidhay magaalada tan Nairobi. waxaanan weydiiyey bal hadda waxay ku sababaynayaan qoraalka ay soo saareen. waxaan ku sababaynaynaa Cabdimaalig Muuse Coldoon waa wariyaasha Somaliland ka howlgala ka tirsan. Amnesty International baaritaan muddo sanad ka badan ay sameynaysay waxay ku ogaatay in sifadii loo xiray ee sharci darre ahayd, qaabkii maxkamadda loo saaray oo loo maxkamadeeyey inay ahayd qaab siyaasadaysan oo markaasi xuquuqdiisii lagu tacadiyey. xorriyatul qowlka uu u lahaa inuu ku cabiro facebookiisa ahaato ama meel kale oo uu ka warrami jiray ha ahaato. sidaa daraaddeed Amnesty International baaritaankii samaysay waxay ku ogaatay in Cabdimaalig Muuse Coldoon sharci darre lagu xiray marka hore oo in la xiraba ayna ahayn, haddana si sharci darre uu ku xiran yahay oo ay tahay in dowladda Somaliland ay ilaaliso shuruucda caalamiga ah iyo turka u yaala ay dalka Somaliland. marka ma waxaad diidan tihiin un sifaha sharci darrada ee loo qabtay mise waxaad leedihiin xataa isagu haba yaraatee wax dembiya oo gafa oo uu galay ma jiro? waxaanu leenahay qaabkii marka hore loo xiray khalad ay ahayd in la xiro ma ahayn oo sifa sharci looma soo marin, waaran maxkamad looma soo marin. midda labaadna qaabka wariyaasha iyo dadka kale ee dowladda dhaliilo waxay xaq u leeyihiin in ra'yigooda ay ku cabiraan qaabka ay rabaan. marka qofka wariyaha ee haddii facebookiisa ama meel kale uu ku qoro wax dowladda uu ku dhaliilayo ama madaxweynaha uu ku dhaliilayo ama wax kale oo ra'yigiisa uu ku cabirayo ku saabsan ma ahan shuruucda criminal defamationka lagu qaado oo
xabsi la geeyo ma ahan shuruucda caalamiga waxay xanibayaan mar waliba in qofka shakhsiga ama wariyaha ama sida kale ra'yigiisa u cabiro ay dowladuhu aanay u xirin waxyaabaha uu ra'yigiisa ku cabirayo laakiin qofku markuu ra'yigiisa cabirayo xorriyadiisu miyaanay xad lahayn haddii uu xadkii xorriyadiisa ka tallaabo in qofkii maxkamad lala tiigsadaa miyaanay wax meesha ku jirta ahayn maxaa aad ugu muuqataan inaad shakhsina xorriyadiisa iyo xuquuqdiisa ilaalinaysaan kuwo kalena aydan xuquuqdooda iyo xorriyaddooda danka lahayn Amnesty International baaritaankii ku samaysay qaabkii Cabdimaalik loo maxkamadeeyey qaabkii maxkamadda loo geeyey qaabkii loo xiray waxay xaqiijisay oo ogaatay in ay ahayd maxkamadayn siyaasadaysan oo loogu talagalay in Cabdimaalik lagu caburiyo xuquuqul insaankiisa halka uu kumay sidaa daraaddeed Amnesty International waxay ku baaqdaa in madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi sidii maalin dhaweyto 500 oo qof oo ka badan oo maxbuus ahaa uu u fasaxay cabsida laga qabo coronavirus inuu xabsiyada ku dilaaco darteed qofka ugu xaq badan Amnesty International waxay aaminsan tahay inuu yahay Cabdimaalik Muuse Coldoon oo ay tahay dawladdu inay sii dayso si shuruud la'aan ah laakiin waxaynu ognahay in Cabdimaalik Muuse Coldoon ay dad rayidii iyaguna eeda ka tirsanayeen kuwaasi haddii ay soo dacweeyeen oo kuwa gefkii uu sida la sheegay uu ka galay lagu maxkamadeeyo lagu helay taasina miyaanay ahayn wax meesha yaala mise xorriyad buu leeyahay inuu cid kasta wax ka sheego Amnesty International ma warhayso waraaqihii iyo bitaanadii samaysay dad shacab oo markaasi ayagu dacweynaya Cabdimaalik oo maxkamad mid oo markaasi dacwo ku oogay kama warhayso laakiin di arinta ayada ay xad jirto oo dad shacab ay Cabdimaalik wax ka tirsanayaan in si dambiyeysan loo maxkamadeeyo oo maxkamadda criminal case lagu qaado oo maxkamadda halka lagu saaro oo xabsi la geeyo marna ma ahan qofkii shacab ah oo Cabdimaalik dacwo u qaba maxkamadda rayidka ayuu aadaya ma ahan in maxkamadaha maxkamad ciqaabeed la mariyo waa inuu maxkamad rayid aadaa Cabdimaalik in ay cidi wax ka sheegatay oo si madaniya loo soo dacweeyey Amnesty International kama warhaysa baa tidhi miyaydan baadhin miya mise marka horeba waa iska indhatirteen sidee loo qaadan karaya waanu baarnay macnaheedu waxaan ka wadnaa kiiskii Cabdimaalik lagu eedeeyey waxaa maxkamadda geeyey qolada loo yaqaan xeer ilaalinta qofka shacabka ah hadii uu qof kale shacab ah wax ka tirsado waxa la rabaa inuu asaga dacweeyo oo uu geeyo maxkamad rayid qolihiinan xuquuqul insaanka waxa la idinku eedeeyaa inaad xuquuqul insaanka inta xidhan aad ka hadashaane xuquuqul insaanku xad ma leeyahay aanu qofku ka talaabi karin Amnesty International iyo dhammaan dadka xuquuqul insaanka u doodo waxay mar waliba u doodayaan dadka laga xaqdaran yahay oo dawladaha ka xoog badan ay markaasi xoog u sheeganayaan oo intay qabtaan xabsi ku ridayaan mar waliba Amnesty International iyo hay'adaha kale xuquuqul insaanka ma daalayaan in ay u doodaan dadka la dulmiyo sida Cabdimaalik Muuse Coldoon iyo wariyaasha kale adduunka inta kale ku xiran Cabdilaahi Xasan oo ka tirsan hay'adda Amnesty International ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka magaalada Nairobi iigu waramayay waa tahay dhegeystayaal bal haatana xagga iyo Koonfur Afrika bandooda iyo xayiraadda dhaqdhaqaaqa ee uu sababay cudurka COVID-19 ee dunida saameeyey ayaa waxa idagana sidoo kale ka dhashay cabashooyin badan oo dadka danyarta ahi gaar ahaan qaaradda Afrika ugu sii badnaadaanbe ay ka cabanayaan culayska saaran iyo sida aanay caawimo u helayn in ay guryaha ku joogaan dalka Koonfur Afrika ayaa haddaba dad mudaharaadayay oo ka cabanayay shaqalaani waxay boobeen meheradaha ganacsatada dadka ajaanibka ah ee dalka ku dhaqan oo Soomaaliduna ay ka mid yihiin booliska Koonfur Afrika ayaa haatan waxa la sheegayaa in ay dadkaasi ka caawinayaan inay tukaamadooda ay ku leeyihiin meelaha tuulooyinka ay badeecadaha u yaala ay ka soo rartaan oo ay geystaan magaalooyinka waaweyn oo boolisku arintaasi ku gacan siinayo ganacsatada dhibtu gaadhay waxa ka mid ah nin Soomaaliya oo la yiraahdo Saxane Xasan oo Faarax Lamaane khadka telefoonka ugu waramay dhibaatadan iyo una haysata waxa weeye dadkii South Africa dhex deganeen baa naboobay dukaamadii marka waxay iskugu jiraan qaar la soo raray iyo qaar hadda la idmaayo laba gubayn waxba laga qaaday wax hore idinku dhacay miya mise waa wax idinku cusub wax kulay anu lugoosgan hadda aan deganahay waxa weeye hadda hore uguma dhicin dadka calasan madowga aan ahayn ee kalarka la yiraahdo degan meeshan wax hore uga dhacay hadda ka hor ma jirin lugoosgan ilaa meel walba soo la boobay anagu waan iska deganaa jiray laakiin hadda tan waxa nagu keentay lockdown-kan iyo calasan dadkii tabaakadii laga iibinayay iyo wax barnaamijyo fara badan oo ganacsiga la xiray dadkii shaqadii laga wada fadhiisto guryaha fadhiista la yiri waxyaabaha maan islaan hadda way sababtay sidee u sababtay noo faahfaahay qaabka u sababtay waxa weeye dadka markii guryaha jooga la yiri shaqadii ay ka shaqaysanayeen laga soo xiray dhaqaale kale oo la siinayeen aysan jirin wixiina cunto aan ku dhaxaysano waxay qasab ku noqotay marka lacag ay ku gataan ilaan ma haystaan inay cuntadan aan meesha ku haysan inay boobaan yacni dukaamadii ay ku soo qamaameen dukaamadii ku yaalay locationka waa gartay adinku marka ma dukaamadaad dhex seexan jirteen ood ilaalin jirteen
waxaan horta wax hore u bilowda ma ahayn shalay inbuu nagu bilowday shalay aroorti marka dukaamadana South Africa dukaamadan baa la dhex degan yahay dhex deganaan jiroon weligana aan ku dhex jiray markay shalay nagu soo qabaameen ciidan iyo waxbaa noo yimiday annaguna marka dad baan wacanay Soomaalida kaleete Soomaalida ma noo soo birmatay wixii la badbaadi karna wal badbaadi wixii kalena waaba cagta la mariyay hadda halkee u qaxdeen oo alaabtiin wixii idin badbaadin la aadeen waxaan u qaxnay meel Soomaalidu ay degantahay Coastal la yiraahdo yaanu u qaxnay oo magaalada Biya meesha ay wax ka dhaceen waa halkee meesha waxa ka dhaceen waxa la yiraahdaa location la yiraahdo Clean School way adu waa location ka tirsan Coastal magaalada Biya Port Elizabeth magaaladaas ka tirsan tahay waa location magaalada ka tirsan waa gartay hadda khasaaraha idin soo gaaray imisa ku qiyaasi lahayd khasaaraha kulli waxa la wixii aan haysanayba waa un cagta la mariyay wixii aan soo rarayna waad garanaysaa ayaab la raray wax jabay iyo hadaan la idmaayo wax nagaba dhumay moogi calasan khasaaraha na gaaray waxa la wixii aan haysanay cagta ma la mariyay wax noo fayo hadda lama oran karo xataa dhismiyaha qasban way gubeenba iyo fariijadii wixii maxaa adinku markii hore ka ganacsan jirteen ma dabakaayooyinka yaryarka ay kiyosyada la yiraahdaa mise waa un alaabta waratada ah walaal waxaanu ka ganacsan jiray cunnaanu gadi jiray dukaan caadi ah oo cunnada nooc walba ay taalo baanu gadi jiray cabitaan cunnadu waxa binaadamku ku nool yahay cunnada la mariyo jidinka waa gartay hadda maxaad qorsheynaysaan maxaad doonaysaan inaad samaysaan hadda kulli South Africa dhaqanka ka jira maaska noocaas markii lagu babo nirgasamays maanu iska nahay oo markii lagu babo hadana dib un baa yabyabay marka waxaanu rajaynaynaa haddii waxaanu naga soo gabagaboobo xilliyadan hadda lagu jiray lockdownka inaanu dib meesha ugu noqono ka bilowno baan rajaynaynaa ilaa ay meel kale la aadaa ma jirto wax khasaare nafeeda ama dad dhibaato ay soo gaartay oo ka warqabtaan miyaa jira may wax khasaare nafeeda ma jiro laakiin hantidii iyo dhismihii aanu ku ganacsanaynay baa la gubay saxane xasan oo ka mid ah ganacsatada Soomaalida ee dhibaatadu ay ka soo gaadhay rabshadahaasi ka dhacay Koonfur Afrika ayuu kaasi ahaa waxa uu waramayay Faarax Lamaane xamde muuse saalax oo joogta magaalada Badhan ayaa haddaba aragtideeda ka dhiibanaysa arrinkaasi waxaana tidhi aad baan uga xumahay Soomaalida hantidooda lagu dhacay dalka Koonfur Afrika waana wax soo jireena waayo mar kasta waxaan maqlaa Soomaalida ayaa hanti laga dhacay wax tallaabo ah oo laga qaadana lama arko ama lama maqlo safaaradda dalkaas u matasha Soomaaliya waa inay arrinkaasi wax ka qabtaan ayay tidhi xamde muuse saalax oo joogta magaalada Badhan halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaana waa la taab Soomaaliga ee BBC-da kala soco bbcsomali.com waxyaabaha ka dhacaya magaaladaada dalka guud ahaan bariga Afrika iyo caalamkaba barta bbcsomali.com waxaa ka go'an inay kuu soo gudbiso masawirka dhabta ah ee dhacdooyinka maalin walba iyagoo oo maqaliya muuqaal bare warbixinadii ugu dambeeyey waraysiyo iyo falanqaynta dhacdooyinka ugu waaweyn bbcsomali.com waxay kuu soo gudbinaysaa arrimaha ka taagan caalamka isla markaa ay dhacayaan ka qaybgal oo ka dhiibo fikirkaaga BBC Somali Facebook booqo oo kala soco mobilkaaga wararkii ugu dambeeyey ee Soomaalida iyo caalamkaba bbcsomali.com mar kasta iyo meel kasta waa bbcsomali.com waa taaynu ku soo noqonno haatana wararkii coronaviruska ee kadib markii boqolaal qof oo khasab loogu hayay xarumo karantiina oo muddadii lagu kordhiyey ayaa dowladda Kenya waxay dadkaasi ku dhaleeceeyeen waxay ku hayso in ay sheegeen wax aan ku habboonayn xeryahaasi inay yihiin kuwa aadama lagu hayo dadkaas oo tiradoodu kor u dhaafaysa baa layidhi 1,000 qof oo isugu jira muwaadiniin iyo ajaanibba ayaa amar lagu siiyey inay iskeeyaan hodheelo iyo goobo ay dowladdu leedahay oo muddo lagu haynayey markii ay dalka soo galeen taasi oo looga gol lahaa in lagaga hortago fiditaanka coronavirus hase yeeshee qaarkood ayaa ku doodaya in goobahaasi sidii maxaabiista oo kale loogula dhaqmayo waxaanay su'aal geliyeen waxa lagu sababeeyey in muddada ay karantiinka kusii jirayaan lagu kordhiyo Emmanuel Gonza oo ka tirsan BBC-da ayaa warbixinta nooga diyaariyey Mucaawiye Maxamed Buraale ayaa soo jeedinaya halkan waa meesha aan seexdo waad arki kartaa sida ay wasaqda u tahay waxaan alaabteeda dhigtaa halkaas waxaan baaldiyaashan u isticmaalaa inaan ku nadiifiyo suuliga muuqaal aan fasiix ahayn oo laga soo qaaday qol yar oo ay tuban yihiin dhar maacuun iyo dhalooyin eber ah oo meel gaasa yaalla ayaa nin u dhashay Kenya waxa uu sharaxaad ka bixinaya xaaladaha ay ku sugan yihiin dadka sida qasabka loo karantiilay sariiro uu dhiiqla galay tuubooyin aysan biyo ka socon oo qallalan iyo suuriyaal wasakha ayaa ka muuqda muuqaalo dhowr ah oo sida kan oo kale ah
ayaa laisla dhex marayay baraha bulshada kuwaasoo laga dheehan karay dad ku nool qolal wasakha oo aan biyo lahayn. dowladda Kenya ayaa ku amartay dhammaan dadka soo gala dalka wixii ka dambeeyey 14 bishii March in la geyn doono xarumo dadka lagu karantiiro ama hoteello muddo 2 toddobaad ah, balse waxaa si lama filaan ah muddadaasi loogu kordhiyey 14 maalmood oo kale kadib markii ay dowladda ku eedeysay dadka karantiilka ku jira inaysan ilaalin sharciga. BBC-da ayaa la hadashay dhowr qof oo ku jira xarumahaasi karantiilka kuwaasoo ka hadlay sida ay u walaacsan yihiin muddada la kordhiyey. helitaanka biyaha ma ahayn mid joogto ah. waxaynu arrintan gaarsiinay wasiirka caafimaadka. nama aysan siinin daawada jeermiska disha amba saabuunta gacmaha lagu dhaqdo. sidaa darteed waxaad arkaysaa in hal dabaq oo dhan oo aynu ku noolnahay aynu wadaagayno adeegyada. mararka qaarna waxaad arkaysaa inaysan shaqaynaynba qaybta suuliga nadiifisa. sidaa darteed waxaan ku qasbannahay inaan isticmaalno jirgaan. waad qiyaasi kartaa kadib waxaad gacmaha isaga nadiifiso. tani waxay sababaysaa xanuunno kale. toddobaadkii la soo dhaafay wasiirka caafimaadka Kenya Mutahi Kagwe ayaa sheegay in xarumaha karantiilka laga helay kiisaska xanuunka coronavirus, isla markaana muddada karantiilka lagu kordhin doono bil kale. wuxuu sidoo kale ku eeday dadka inay jebiyeen shuruucda oo ay xitaa xaflado dhiganayeen iyagoo karantiil ku jira, arrintaasi oo ay beeniyeen dadka ku jira xarumahaasi. waxaan la yaabanahay haddii ay og yihiin waxa halkan ka dhacaya iyo sidaan u dhibaatoonayno, sababtoo ah waxaan dareemayaa inaysan runtii ogeyn. waxaan dareemayaa inaysan la socon inay tani khatar nagu tahay. ma doonayno inuu nagu dhaco fayraska. inaad maanta dhan qol ku dhex jirtid, habeenkiina lagaa baaro heerkulka, waxay gebi ahaanba saamayn ku yeelanaysaa caafimaadkaaga maskaxda. haatanna waxaana loo sheegay inaan halkan sii joogno 14 maalmood oo kale. ma aha wax aan la jeclaan lahaa qof kale. dhammaan dadka ku jira xarumaha karantiilka ee dowladda iyo kuwa ku jira hoteelada loo asteeyey ayaa lagu qasbay inay iska bixiyaan qarash ku baxayo oo qiimahaan u dhexeeya $20 ilaa $90 halkii habeen. Tubinkool Petard oo ka soo laabatay Canada ayaa sheegtay in dad badan oo ku jira hotel ku yaala Nairobi ay ku dhiban yihiin bixinta qarashaadka laga rabo. markii aan maqalnay in muddada lagu kordhiyey 14 maalmood kadib markiina laga waayay fayraska, runtii saameyn ayay nagu yeelanaysaa maskaxiyan iyo dhaqaale ahaan. sababtoo ah bal qiyaas inaad qol ku dhex jirtid muddo 28 maalmood ah, waadna og tahay inaadan qabin fayraska. diyaar ayaan u nahay in mar kale nala baaro. haddii la iga helo isbitaalka ayaan aadi doonaa. taasi ma diidayo. ma doonayo inaan halis geliyo qofka ii dhow amaba kenyaanka kale, balse sidoo kale baar shaqaalaha hoteelka, sababtoo ah lama baarin. taasi sax maaha. dowladda ayaa garwaaqsatay caqabadaha ka jira qaar ka mid ah xarumaha karantiilka, balse waxay ku adkaysanaysaa inaysan khafifin doonin tallaabooyinka ee waxa u qabanayso faafitaanka xanuunka COVID-19. Mutahi Kagwe waa wasiirka caafimaadka ee Kenya. aad ayay muhiim noogu tahay inaan bogaadinno in tallaabooyinka ay dowladdu qaaday ay saamayn yeeshaan. waan ogolnahay taasi, balse waxaan filayaa in sidoo kale ay muhiim tahay haddii aan khafiifinno waxa aan samaynayno. waxaannu arki doonnaa mawjad aynan weligeen horay u arkin. idaacaddii subaxtinimona intaasaanu kusoo gabagabaynaynaa. sidaas iyo nabadgelyo.